goboladu mararka qaarna waxay rabaa in laga hadlo mararka qaarna ma ogola in laga hadlo waa meel khatara annaga laftigeena waxa ka shaqeynaa siyaasad waaye laakiin haddana waxaa jira mabaadi iyo principles mabaadidu maxay yihiin ummadaan inayna isdhicin isboobin dowlad cadaalad yani doorasho cadaalada la helo warkaas cid oo dhibaya ma jira iyadan مثلا هذا galmudug ah oo ka socota qofki sheegaayo saddex waxa laga sugayaa maamulaha ka adoo hay Soomaa runtii wax lagu farxo ma arintaas mudug iyo galguduud waa meel sensitive waa meel u baahan si gaar ah in loo ilaaliyo si gaar ah looga warqabo maxaa yeelay aniga waxaan ku jiraa dadka aaminsan hadiiba nabad la rabo mudug iyo galguduud horta inay nabad noqdaan kaftan ilaa ku jira mudug iyo meeshaas waa in horta xoog la saaro hadda niman waxay yimid geesiyaada waxay u turayaan aan la arkin oo mudug iyo galgaduud baan aqaanin inkastoo ay ka soo jeedaan ya war mudug iyo galgaduud ma annaga fulayaalaho ka baqayna mase sida aan moodayna ma aha ma waxaanan ogeynaa jira ilaa hadda waa yaabana intaas markaa ka gudbo maxay tahay ujeedooyinka loo asaasay madasha waxaa loo asaasay number 1 sharciga in lagu dhaqmo madashu waxay hoosta ka xariiqaysaa haddaan sharci lagu dhaqmin dowladnimo ma jirayso horaan u soo aragnay ma rabno inaan waqti ku dhuminno waxaan waxba ka soo baxaynin Soomaaliya waxay dowlad ku tahay sharci ku meel gaar ah ahaado laakiin sharciga noo qoran waa in cid walba ilaalisaa cidda ugu horeyso ilaalinaysana waa siyaasiyiinta cidda ugu sii horeysana waa dowladda cidda maanta cabashada laga yahay oo ama siyaasiyiintu cabasho ka yihiin ama dadka caadiga oo cabasho ka yahay waa dowladda oo la leeyahay dowladdu sharciga ha ilaaliso weligaa ma isweydiisay dowlad sharciga lagu doortay intay xagga iska dhigtay sharci darro kaliya ka shaqaynayso oo maalinna sharciga abaal aan ka fiirinayn haddana maalin walba kula waa dowladdii ugu horeysay waa dowladdii ugu horeysay waa dowladdii ugu horeysay weligaa ma isweydiisay waa shay cajiiba runtii dalkan wuxuu soo maray maraaxil kala duwan wuxuu soo maray jamhuuriyaddii koowaad waxaa la aasaasay 60kii dad Soomaaliyeed oo aan khibrad u lahayn oo aqoon lahayn oo jaamacada soo marin oo qurbo soo joogin intay gumaysi bixiyeen oo isu yimaadeen dawlad noo dhis waa is doorteen waxa laga sheegi karaa waxa ka khaldami karaan laakiin nidaam madaniya oo dawladu ay ku dhismi kartay sameeyaan 69kii ayaa madaxweyne Cabdirashiid la dilay raxmatullaahi calayh dawlad militariya timiday 22 sano ayayna xukumaysay waxaa ka dambeeyay laga soo bilaabo 19 ilaa 2000 waxaan ku jirnay fawdo iyo dagaal sokeeye waxaa noo bilaabatay jamhuuriyaddii saddexaad laga soo bilaabo 2000 ilaa hadda 2020 joognaa soo ma haddii ilaa hadda aan isku qancin la'nahay sharciga aan ku dhaqanno arrintaas waa arrin annaga Soomaali haddaan nahay nagu noqonaysa in aan wax fahmno oo aan wax baranno waa soo joognay dadka dibadda jooga aad ay u badan yihiin oo wax ku bartay kuwa ku dhashay aad ay u badan yihiin dadka dawladda soo shaqeeya aad ay u badan yihiin maxaa keenaya in sharciga lagu dhaqmi waayo waxaa keenaya qof raba inuu wax boobo fiiriday qof raba inuu wax boobo sharciga shala markii la isdooranayay waa fiicnaay markii madaxweyne lagu noqonaayay waa fiicnaay markii ra'iisul wasaare lagu noqonaayay waa fiicnaay hadda waa xun yahay Soomaa leesh ya jamaa ma takhafu Allah ya jamaa sharciga goorma la bedelo waa la idinku wareejiyay waa xumaay sharciga xaggaas ka dhigtaan dawlad ma lagu noqonaay taas
dowladnimada marka maxay u baahanta waxay u baahan tahay waqti inaan gelino waxay u baahan tahay fikir inaan gelino waa fiican tahay xafladahan oo kale dadku inay yimaadaan is abaabulaan isbooriyaan waa fiican tahay laakiin sida gabadha walaashay halkaas fadhida ay sheegtay sahro waa soo magaca sacdiyo inta isu nimaadon kala tagna qaranku ma dhismaayo waxaan u baahanaa qorshe dowladnimo u baahana muxuu yahay qorshaha dowladnimo waxa u baahan yahay kow sharci ku yuurar inaan naqano sharci ku yuurar sharciga laguma kala weyna laguma kala yara walaalaheen reer baraa waa maasan yihiin waxay sugayaan sharciga waay sax soo ma sharciga sugayaan annaga dhan aan sugaynaa annaga waxaan rabnaa sharcigaana miday kara qabiil nama miday karo deegaan nama miday karo dhiig nama miday karo waxaana miday kara waa sharci dowladna sideeda sharci ay ku dhisanta marka madashu waxa koobaad u taagan tahay ma la fahmay sharciga in lagu dhaqmo number 1 waxaa jira qodobo muhiim ah oo sharciga ka farcamaaya oo dowladda ay u taaganta oo madashu u taaganta safurla madashu u taaganta maxay yihiin xorriyada muwaadinka iyo xuquuqdiisa arrintaas diinta islaamka ballan qaaday sharcigeena ballan qaaday dhaqankeena ballan qaaday arrin laga tanaasuli kara maaha xuquuqda iyo xorriyaadka muwaadinka qofka Soomaaliga waa lama taabtaan waa khad ahmar looma dhawaa karo ma ku dhibaa ma soo jeceshahay dadow dhibaya jira warkaas annaga xuquuqda iyo xorriyaadka muwaadinka madasha wuxuu u yahay lama taabtaan qofka uu dhibaayo noo sheeg muxuu kugu dhibaa inaan fahamnaan rabnaa muxuu kugu dhibaa ma noo sheegi kartaa adoo raalli ah ha waa ku soo daalna diyaar uma nihin qodobka saddexaad oo madasha u taagan tahay waxa waaye maamul goboleedyada saluuga qaba dowladdu inay la hadasho oo ay la heshiiso maxaa yeelay dal kala qoqoban oo kala jeeda horumar ma gaari karo waa la fahmaan umaleynaa maalan hadda waxaa la yidhi doorashooyinaa la qabanaa inta lagu qabanaa guriga madaxweynaha ma lagu qabanaa doorashooyinka soo lama rabo meel kasta in lagu qabto dowladdu waxay leedahay one man one vote aan samaynaynaa haddana dowladihii heshiis lama aha dowlad goboleedyadii kuwa aamusan uma aamusna inay qanacsan yihiin waxay u aamusan yihiin warbal u kaadiya si aan ilaahay wax yeeli doonaayo kuwana warkooda waa caddaysteen soo ma maxaa yeelay mid ogow qof Soomaaliya oo cadaalad darro ku qancaaya ma jiro qof Soomaaliya oo ku qancaaya in lagu dul socdaa ma jiro qof walba wuxuu rabaa wixii loo doortay asagoo sharaf leh inuu ka soo baxo maxaa la yiraahdaa umul ayadoo xaalkooda og ee dhiigada ku fadhida sax wala la marka waxaan rabnaa dadka Soomaalida mararka qaar waxa isaga dhex darsan mucaarad iyo muxaafid ma waxaan naqanaa mucaarad wax toosiye oo dawladda si sax ah u dhaliila oo yiraahdo khaladka la joojiyo mase waxaan naqanaa shahaadatu zuur been ku sacbiye teejicish inaan naqano mucaarad wax toosiye aan noqonayna waana ku sharfana maxaa yeelay waxa aan sheegayno dhan waa wax sharci ku qoran arrintaas waa ognahay dawladda culays oo ku haya dhib oo ku haya xoolihii qaranka waxaa lagu bixiyaa dad in la caayo laga been sheego dawlad iyada dadka caayays oo xoolihii qaranka ku bixinaysa dad in la caayo adigu weligaa maaragtay bal ka waran ya soo mushkilo ma mushkilo weyn waa dawladdu waxaan rabnaa inay ka shaqeyso wixii loo wakiish maxaa loo wakiishay ummadda inay midayso amniga inay ka shaqeyso dhaqaalaha in la horumariyo taasaa loo wakiish ya ha marka dhalinyaro yaryar oo masaakiina oo Yurub iyo mataqaana Mareykan ku daalay inta lacag loo qoran la yiraahdo cajalada kala jara dadka caaya Facebook ka shaqeeya waxa soo xukum dawladnimo kuma iimaanayso fi nihaaya anaga Soomaaliya nahay waa is wada naqaana qof la arka taariikhdiisa iyo dhameystirana leeyahay marka meel aan wax ka soo baxaynin inaysan dawladdu ku mashquulin oo sharciga ilaalisan rabna waxaan rabaa hal arrin oo fiican inaan sheego diinta islaamka
وحاجر وحلي راهدو الكليات الخمسة ودينتو إلى لسه الله قال اللو دبال ويتو دولته إنا إلى لسه والله أرك إنا يتهي أمر العام وحواي إلى لنت عقيدة إلى لنت النفط مواطنك أما قفك استوى شرفني إلى لنت مالك إلى لنت عرضك إيا شرفك ماشي أنصح هذا وحواي دولته انت صوت لن واجبس دين ما إلى لسه نف ما إلى لسه شرف ما إلى لسه عقل ما إلى لسه محي أتاجنتها المركب وحي أتاجنتها يا شيكة من شيكة وحي أتاجنتها أنا ماشي فردو مالي والبفيسبوك وحلو صوتورة يا جماعة دل كان دل دالي ونباتيسن وهرو إنه أسعد الربوان لبت اللابقاد وحي لا يكوكوك يا سمي تبردر لكو مديدايو تبردر لكو منعايو لكن وحا أغاتا سقاشن iyo koowdii dadkii qaxootiga naqday ee Kenya iyo meelo kale tagay ilaa hadda waa fadhiyaan yey sugayaan adinka nasiib ay yeelateen inta timaadeen laakiin dadkaas wali meeshay joogan dalka dhexdiisa kuwa ku barakaco jooga mas'uuliyadooda yaa qaaday ha dawladda qaadays laakiin dawladda ay ka gaabis anaga miska fariisayna maya inaa u istaagna naga la rabaa marka arinta shanaad arinta gobolada waa ka hadlay arinta shanaad oo madasha u taagan tahay waa arinta doorashooyinka crisis-kan oo dhan madashu waxay aaminsan tahay waxay u dhacayaan waxa ugu weyn waa arrimaha doorashooyinka waxa ogtiin doorasho marka la rabo in la sameeyo waa isfaham siyaasi inuu jiro waa inay jirtaa xasilooni doorasho lagu qaban karo maxay la dad doorasho galaya waa waxba isku waafaqsaneen see doorasho u galaya ya sheeka ta ma jirto dawladdu hadii wixii laga raba ay ku guuleysan lahayd oo one man one vote ka la sheegay waxa uu baahan yahay dalka in nabad laga dhigo ummadda la isu keeno aragtiyada la mideeyo amni oo yahay dadku og yihiin doorashada si u galayaan tira koob la sameeyo doorasho one man one vote halaada markaas annaga dhanna waa ogolnahay waxaan u taaganaa axzaab waay waxaan u taaganaa afkaar siyaasi waay waxa rabnaa in la sameeyo doorasho waay waa ogolnahay laakiin ma jirtaa waay ma jirto saddex dhibaanka oo sheegay dad meel laga keenay aan la ogeyn anu hadda magac kuma sheegayo waa Soomaaliya inta meel lagu soo aruursho waa codayn la yiraahdo ee dalka hadan 4 sano dambe lagu sii xukumo xageena geenaysa ogaada annaga 4 sano iyo 10 sano waa sugi karnaa mushkilad lagu ma hayso laakiin dalkan xaq u aadaya waa su'aash taas waa su'aash ya marka waxa ogaataa kullama khilaafku oo bato waxa xoogeysanaya cadow oo ugu horeeya shabaab maanta magaalada Muqdisho ayaga ka taliya dawladdu magaalada kama taliso xaqiiqada taas waa xaqadu waa taas cashuure ka qaadaan guriga jaar ka qaadaan qof ganacsada aysan lacag ka qaadin ma jirto bal waxa la sheegay hay'adaha dawladda ku ugu muhiimsan inay cashuur ka qaadaan marka dawladdu annaga waxaan aaminsanahay amaanadii loo dhiibay waa la kuftay tabaryaro lagu manici lahayn dhaqan xumay ku darsatay ya goboladu mararka qaarna waxay rabaan in laga hadlo mararka qaarna ma ogola in laga hadlo waa meel khatar ah annaga laftigeena waxa ka shaqeynaa siyaasad waaye laakiin haddana waxa jira mabaadi iyo principles mabaadidu maxay yihiin ummadaan inay isdhicin isboobin dawlad cadaalad yani doorasho cadaalad la helo warkaas cid oo dhibay ma jira iyadan مثلا هذا galmudug hawl ka socota qofkii sheegay saddex waxa laga sugayaa maamulaha ay keen adoo hay Soomaa runtii wax lagu farxama arintaas mudug iyo galguduud waa meel sensitive waa meel u baahan si gaar ah loo ilaaliyo si gaar ah looga warqabo maxaa yeelay aniga waxaan ku jiraa dadka aaminsan hadiiba nabad la rabo mudug iyo galguduud horta inay nabad noqdaan kaftan ilaa ku jira mudug iyo meeshaas waa in horta xoog la saaro hadda niman waxay yimid geesiyaal waxay u turayaan aan la arkin oo mudug iyo galgaduud baan aqaan in ka soo jeedaan ya
war mudug iyo galgaduud ma annagaa fulayaabahoo ka baqayna mase sida aan moodayna ma aha ma waxaanan ogeynaa jira ilaa hadda waa yaabanna